أهلا وسهلا كسر هذا مرة بعد برنامجكم مسامح كريم maalin walba barnaamijkan waxaan ka faa'iidnaa qisooyin iyo waxyaalo badan oo inaga faa'iido weyn inoo ah qalbiyadeena qaboojiya dadkana isku soo dhaweeya walow ay dhacdo mararka qaarkood inaan ku guuleysan weyno barnaamijyada qaarkood maanta waan rajaynaynaa kan inaan ku guuleysano qisadan maanta idii hayo waxay qosaysaa gabadh iyo sadohdeed iyo wiil iyo hooyadii gabadhu wiilku qabay ayaa maanta waxay dalbatay inay aragto sadohdeed waxaana la yiraahdaa Khadiija Maxamed Talib oo Suuriya ka soo jeeda ila soo dhaweeya أهلا وسهلا كسر برنامجكم مسامح كريم واندوهي مدن ما شاء الله قف أمسن بطهي ملا ما هتشدني يا أمسنات وانا شيء لكن وان هدلا ما شاء الله وليبا قبل قروح بدنا حجابن بطهي واد ما حسنتي خديجة حاسكي أحمد سو سدا ما ها waxaan ka soo jeedaa dalka Suuriya inta aan wada sheekaysan anigii Khadiiji bal qisadeeda aan wax yar idiga taabto waxay daaran tahay qisadeedu iyadii sadohdeed ilmihii ugu horeeyay markay dhashay Khadiiji waxa uu timid sadohdeed si ay u gargaarto una caawiso inankeedu qabo waxayna qoyska u ahayd qof caawinaysa iyo ubadka ayida u ahayd iyo kan yar hadda soo kordhayba aad ayay u dhaxgashay nolosha reerkan haddaba Khadiiji kama helin in ay sadohdeed awoodda guriga iyadoo ay la wada wareegto iyadoo waliba sadohdeed caawinaysay haddaba sadohdii way ka xanaaqday khilaaf ayaa labadoodii ka dhex abuurmay Khadiija ma jeclaan xaaladaas in lagu sii jiro murankaasina muddo sanada ayuu soo jiitamayay haddaba Khadiija way dhibsatay sadohdeed xadna inay u samayso ay markaa go'aansatay soo sida ma sababta awgeed ayay u timid barnaamijkan Musaamax Kariim وحميد أورانسانا ماي أديكا wax kasta yiri وأنت أصلا ماي إن يرو كلنا way jirtaa أي سو دبل ugu horreyn waan kaaga mahad celinayaa أنا ونسيدو kale oo kaaga mahad celinaa in yar waan ka hadli karaa soo maaha dhibaatadii aniga saddexdeena kala dhex martay saddexday booska hooyaday ayay taagan tahay anigu 16 jir ayaan ku guursaday 3 sanana guri baan leeyahay aniga saddexday xiriir wanaagsan ma aanan lahayn markastana iyada awoodda guriga waday waxaan jeclaa inaan aniga ninkaygu kaliis ku ahaano oon anigu gurigayga maamulo sidoo kale isaguna raali kama ahayn islaan aad u qaylo badanna way ahayd guurkayga kadib saddexday anigana waxbay iga sheegi jirtay ilmahayga waxbay ka sheegi jirtay mararka qaarna sida aan guriga u maamulayo ayay wax ka sheegi jirtay waana ay amri jirtay aniguna ma jecli in la amro noloshaydana qof soo dhex galo anigu sida aan u labisanahay iyo sida aan u noolahay iyo saan go'aan u qaadanayo ma jeclaan in la soo dhex galo arrintii ka bacdi way weynaatay sanad baan anigu si xakameynayay sida ay u dhaqmaysana aanan uga jawaabin maalin baa waxa dhacday waxay ii timid anigoo aad iyada uga cadhaysan waanay canaanatay aniguna gurigayga ayaan ka eriyey isma dejin marka anigu waan cadhaysnaa kadibna si toos ayaan guriga uga eriyey maya anigu lamaan hadal oo waaban eriyeyba kadib waxaan ku idhi aniga gurigayga iga bax noloshaydana ka bax aragaagana iga qari islaan ii gabowday khalad ayaan ka galay marka waxaan doonayaa waa hooyaday oo kale maanta halkan waxaan u yimidinayaa cabso adigu xiriirkiini ma toos baad u goosay mise mararka qaarkood ayaa jirta inaad la xidhiidhay annagu sanad wax xidhiidha maanaan samayn sidii maalintii iga tagtay ayaanay iiga maqnayd oo ninkaagu arrinkan miyaan soo dhexgelin aniga ninkayga dhib yar ayaa naga dhex dhacday markii aan hooyadii guriga ka eriyey aniga ninkayga cuqubo ayaa nagu dhacday nolosheedii way noo wanaagsanaa weyday aniga isaga iyo gurigiiba markii aan hooyadii waan wada noolnahay laakiin nolosheedu farxad kuma jirto mararka qaarkood ma wuxuu kugu cadaadiyaa inaad hooyadii ixtiraam weyday ma ka xumaaday arrinkan markaa uu ka xumaaday anigana uu ii cadooday ma waxaad doonaysaa sadohda inaad raali geliso oo inaad ka ducaysato si aad u kasbato ninkaaga wanaagiisa hore waxaan doonayaa inaan qaladkayga hore saxo waad ku mahadsan tahay sida kalsoonida leh ee qisadan aad nagu soo gudbisay aad baan kaaga mahad celinaynaa anigu fariintii waan u diray saddexda ahayd marwo sana nuuri bal aan aragno inay ogolaatay inay timaado stuudiyahan
qisadu waxay ka dhacday waddanka Suuriya. waa qiso ay la yaabi doonaan dadka xaasleyda isqaba oo khusaysa sodohda iyo inanta iyo inanka. aduu qiso daaran qoys, waana qisooyin aan oran karno maalin kasta way dhacaan. waxaa nala joogta Khadiija iyadoo weliba raali gelinaysa sodohdeed oo lagu magacaabo Sanana waxay ku sugan tahay hadda stuudiyaha, waxaanay sugaysaa intan u ogolaan inay soo gudubto. ha soo gudubtaa tabaarkan. أهلا وسهلا. سودو waad mahadsantahay, waan dhowahay. muddo intee leeg baa kugu dambeysay Suuriya? sanad iyo badh meelahaas ay igu dambeysay Suuriya. insha Allah ilaahay nabad buu idiga dhigi doonaa. insha Allah ilaahay aa nooga dhiga dhulkaygii iga nabad. waran sideeda kale xaaladaha. alxamdulilah dhammaan waqtiga xaalko dhan waa fiican yahay. hadda badhaceen Soomaa. alxamdulilah ilaahay baa mahadle. alxamdulilah ilaahay baa mahadle. waxaa laga yaabaa barnaamijka markaad timid inaad isweydiisay yaa iga cadhaysiyey, yaan ka cadhaysiyey, talo yaa i haystaa, yaan ma garanaysaa. wallaahi anigu garan maayo. adigu cidba u xanaaqsan tahay? anigu cidba uma xanaaqsanin. cidnaba? haa anigu cidnaba uma xanaaqsanin. qofbayga ma xanaaqsiin maasha karaan. Allah laajadaaduna waa reer waqooyi. haa aniga laajadaydu waa reer waqooyi. laakiin aniga tayada maxaad ku garatayna? isku laajadun baynu isku nahay laajad. allah ku barakeeyo, allah ku barakeeyo. marwo ma axmed oo keliya dhashay mise inanka weyn baa jira? haa anigu axmed mid ka weyn baan leeyahay. magaciina? aniga mar waxaa laygu dhahdaa umu axmed ama Umu Dalaal Dalaal. ayaan kugu waa yeerayaa. si fiican Mar haddaad labaad igu aad baan yeedhayso. kusoo waad dhaweynayaa. mahadsan tahay mudane. allah ku barakeeyo. marwo kalow wax kadisaan ku haynaa, kadiskaana waad arki doontaa, laakiin waxaa laga yaabaa inay kugu adkaato. anna waxaan rajaynayaa kadis aad ku faraxday inuu noqdo, sababtoo ah qofka adiga ku soo dalbaday oo qofka ku ciseeya oo ku jecel. waxaana suurtagal ah in isfahan waa dhexdiina ka dhacay. garan maayo wallaahi. waa noocee talow. shaashadda haddaba eeg haddaba. waa xukumo ku dhacday. alla naagta maxaalka laygu keenay in layga qaritan ma doonayo in arko. mudane anuu dooni maayo tan in arko. iga qariyo tan inkaar baa ku ogay. haddana mudane anuu tan ma rabo in arko. inkaar bay tan iga shaqaysatay anigoo sudadeed. allah hay tusina tani wallaahi bilaahi sudadeed baana inkaar iyo xuquba iga shaqata mudane. tan maalin dambe anigoo sudo ay gurigayga saartay sudadeed baana. umu Dalaal ma garanaysaa sababta halkan u timid? anigu garan maayo halkan iyadu maxay u timid bal ii sheeg mudane. waxay doonaysaa inay kaa dalbato milyan. anigu milyanna maayo. hadday wax i siinaysana lacagteeda xataa iyadu ku dooni sii mayso, maayo. laakiin adig kaa rabtaa. aniga markaa ma lacag bay iga ogtahay. sawdii banaanka ii saartay shilinba ma haysan markay saartay. umu Dalaal anigu ma rabo naagteena wejigeeda waxba arko. iyada ha eegin, waxba eegin, aniga isoo eeg. anaa kula hadlaya, aniguna isoo eeg. Ay, anigu naagtan dooni maayo inaan arko. anaa kula hadlaya, aniga eego. waxay halkan u timid inay adiga kugu raali aniga yani geliso. waxba i raali gelinin. waxba kama rabo anigu. waxaan maqlay inaad adigu aanad rabin inaad la kulanto iyada iyo ninkeedaba. maxaa dhacay? aniga way xumeeyeen iyada iyo inankaygiiba. iyaduna bannaankay guriga iga saartay. isna kama hadlin haatan arrinta. adigu yaad la nooshayn. anigu keliday baan ahay. cidna lama nooli. Keliya? keli baan ahay. waxay kuu soo dirtay fariin. anigu waxba kama rabo. waraaqna ayaa aqriyay. anaa ku akhrinaya maqal. mayaanu gabadhaa fariin ka timid dooni maayo. anigoo da'daasa ayay gurigeeda iga saartay oo weliba sodoodeeda. waxaan jeclaan lahaa inaad igu tixgeliso inaan ku akhriyo warqaddan, adigana xishmo weyn ayaan ku hayaa. aniguna karaaman adiga ku haya. wallaahi qof qaaliya ayaa tahay. allah ku barakeeyo. waad mahadsan tahay. hooyadayda qaaliga ahayd ee umu Dalaal marnaba anugu kugulamaan dhaqmin sidii sodohday, adiga oo weliba igu jira booskii hooyanimo. hooya qaaliyey, adigu mar kasta waxaad ku dadaali jirtay ood weliba danayn jirtay farxadda anigii Axmed, weliba adigoo kalgacal iyo muxibo u hayay awlaadad ayida u tahay. waa waxyaalaha aanu shaki igaga jirin. wanaagaaga badanina ma aha mid la koobi karo. xaqiiqdii anugu waan kugu khaldamay, waanan ka qoomameynayaa sidii aan kugula macaamilooday. waxaanan ogahay weliba inaanan weli qiran dembigii adiga aan kaa galay marnaba.
anigoo weliba khalad weyn qaladoo kaliya sheekadu may ahayd sheekadu qalad weyn ka weynayd waxaa laga yaabaa hooyo qaaliye qaabkaad adigu dhaqmaysay qaabkan anigu dhaqmayeyba inay kala duwanaayeen iyo qaabkan u soo bandhigananayba dareemadeena ilama fiicneenna marnaba inaan adiga hadalkayga korku ugu qaado hooyo qaaliye mayna ahayn hooyo qaaliye inaan adiga sidaasoo dhan kuu dhaawaco anigu maanta halkan waxaan u joogaa weliba iyadoo dadkoo dhan ay maqlayaan inaan kaa raali geliyo wax kastoon kugu sameeyey iyo sidan adiga kuugu aniga gabadhani waxba yaanay raali gelinin waxbana ka dooni maayo inaan arkana dooni maayo xataa hadalkeeda uma baahni inaan maqla anigu hooyo qaaliye gurigeennu wuxuu ku qurux badan yahay joogitaankaaga qofkaaga naxariis badanna noloshayda maan arag inankayga qusay kaasoon jecelahay inaan u koriyo si uu noqon lahaa nin wanaagsan sidaad adiguba u soo korisay axmed iyo dalaalba waa mar labaadee waxaan kugu raali gelinayaa dadkan hortooda khaladkii aan kaa galay iyo xumaantii aan kugu sameeyey hooyo macaaney sadohday waxaan kaa baryayaa oon rajaynaya inaad i cafido anigu saamixi maayo gabadhan waayana gurigeediiba iga saartay way ka qoomamaynaysaa anigoo sadoodeeda ayay igu qaylisay adigaba miyaanay dhicin markii aad xaaska ahayd inaad sadohda isqabataan may haddaba umu dalaaley mayaanu cafin maayo marwey maqal may way qoomamaynaysaa halkanna waxay u timid weliba dadkaasoo dhan oo arkaya reer shaam oo keliya maaha malaayiin qof oo daawanaya weliba in ay sadohdeed raali geliso khaladkeedii inay qirato adiguna maanta xidig baa tahay adigu xidig baa tahay mayaanu xidig may xidigta gurigaa tahay weliba xidig dhacday baan ahay anna way igu adag tahay umu dalaaley anigu inuu gabadhan ma cafin karo mudana ay dhibin adiguna ha ooynay maqal waxyaabo ka daran lagu ooyaa jira dhibaatada suuriya ka taaganba imika in badan baa lagu ooyaa adiguna yacni waxaad ka ooyeysaa xumaato yar inaan aad sodo anigoo sodoodeeda ayay guriga iga saartay welibana dhammaan jaarka oo dhan baan arkay anigu sidaanu ooyey indhahaygu way qallaleen laakiin iyadu hadda socon bay ila dhaqantay aniga iyo ninkeedina arrinkan way isku khilaafeen ninkeedina sababtaada ayuu gabadhan ugu kacay aniga iyaga waxba igama gelin khilaafkooda waxba igama gelin kaasina inaan aniga iyo maaha haatan annaga arrintu haddayna soo gaadhay wax walba waan la soconnaa haatanna raaligelin bay diyaar u tahay aniga way dhaawacday adigase maxay kula tahay weliba malaayiin qof hortoodii doonaysa inay kugu raaligeliso may aniga tan cafin maayo qof mu'minadaa tahay waan oga laakiin iyadu waxay samaysay wallaahi anigu inantaydoo kale sida eed baan ula gabadhanna awlaad aad ayay u tahay ayay dhashay gabadhani waa gabadh xun waxba yaanay wanaag maanta raadin ubadkaygii anayeeyada u ah haatanna waad arkaysaa hal sanna xataa ma arag inankaygu xataa hal mari lamu soo hadal waad is arkaysaa iyadaa cid walba iga afka khalad kuu dhacay aniga kaas inaan ii noqon gabadhan qabin xataa adu miyaad dhalin ood soo korin anigaa dhalay laakiin nimaad dhashay kuma dhalin si kastee haataba imanka reerkii ha isku soo noqdaan may anuu yeeli maayo arrinta inankii adigu uu kuu soo noqon doona carruurteed ayadoo tahayna dhaftaad ku qaban doontaa may arrintani way igu adag tahay inankii yaray qusay ayadoo heenna waxaan ku weydiiyey khadiijaay bal sadohdaa la hadal waa tane ma arkaysaa wejigeeda maasha allah waa gabadh qurux badan muddo intee leg baa kugu dambaysay wejigeeda inaad aragto gabadha wejigeedunbaa qurux badane qalbigeedu waa mugdi mudane khadiija la hadal sadohdaa adun baa qancin karaa hooyada qanci sadohdaa gabadhii gurigeeda iga saartay ee sida cune qashinkaaba ii tuurabi maayo hadalkeeda inaa dhegeyso dib male haddii gurigeedii kaa saartay waanaad ku noqon doontaa haye khadiijaay hadal haddaba ooyo iga raali noqo waan kaa raali gelinayaa khaladkii aan sameeyey anigu waxaan noqday qof xun ma ahayn inaan sidaa kuu galo la'aantaa noloshu way nagu madoobaatay waan ku baryayaa hooyo ilaahay cimrigaaga ha dheereeyo iyo cafi aniga waan qaldamaye waan ku baryayaa hooyo ku cafin maayo khalad baan galay hooyo iga raali noqo biliis baad noqotay cafi hooyo may cafi hooyo cafi hooyo may hooyo ku cafin maayo intaadi maalayo hooyo ubadkan ayayadawa iyo inankaygii waad iga dheeraysay hooyo waan kuu saacidaya maqal umu dalaalay maqal aniga waxay ku leedahay anu waan ciqaabanahay tanna waa gabadhaadii oo kale inanka iyo inanta iyo ubadkaba intaba adaa ka mas-uulay ubadkaaga yihiin waxay ku leedahay 16 jir anoo ah baan guriga soo galay way dhacdaa mararka qaarkood duruufuhu in la isqabsado amba waxyaala khaldan ay dhacaan iyadu danteeday raacatay iminka anna taydan geli ku raacday
runtii horta baruntii aniga ma ciiseynaysaa adiga si weyn baan ku ciiseynaa madaxaadii saaran tahay gabadhu wuxuu timid inay ku raali geliso waxayna ballan ku qaaday inay madaxeeda ku saarayso way igu adag tahay taasi gabadh iyo hooyadeed baatiin gabadhan inantaydii bayd laakiin waa inantaydii ay ceebaysay waan ognahay anigan inuu kugu adeeg yahay carada badan iska dhaaf qof wanaagsan baa tahay oo qalbi weyn leh oo naxariis badan ma jiraan markaa wax naceeb aad u qabtaa aniga qalbigaygu wuu iska wanaagsan miyaanad reer Suuriya ahayn haanu reer Suuriyaana laakiin gabadhani way dhaawacday bay weliba ay dhaawacday jaarkayga hortooda ay ku dhaawacday maxaa joojiyay imu dalaalay waxa kula weynaaday jaarkaaga iyo ehelkaaga markaa aniga cuquba iga shaqaysatay inta maya imaqal horta ehelkaaga iyo jaarkaaguba inteen leeg bay leeyihiin 20 ba ay weliba hortooda kugu dhaawacday ehelkaaguna waa intee may gabadhan saxibay gashay imaqal horta aniga haddii la isku wada geeyo tir ahaan intee bay yihiin boqolba haddaba anu mid aan kuu sheego waxa halkan ku sugan iyo wax daafaha adduunkaba ka daawanaya 100 milyan way ka badan yihiin si fiican hadda ay la soo imaqal 100 milyan way ka badan yihiin inta daawanaysa barnaamijkan gabadhaasi soo istaagtay waxayna markhaati ka yihiin ayna arkeenna inay gabadhaasi khaladkeedii qiratay halkanna doonayso inay kugu raali geliso wayna og yihiin inaad cafinayso gabadhan hooyo waan kugu qaldamay qaladkana mar dambe ma geysanayo icafi waan ku baryayaa lugahaaga gacmahan ka dhunkanay iyo madaxa walibana cagaagaan haystaa hooyo waan ku baryayaa hooyo raali iga noqo aniga markasta hooyaday baa tahay anigu qof xun baan noqday hooyo raali noqo may laanta noloshu way ku madoobaatay carruurta iyadoo hayd baa kuu baahan hooyo qalbigaagu uu weyn yahay waan ogi qof wanaagsan baa tahay anigu aniga hooyo cafi aniga marwo tani waa fursad barnaamijkani uu ku siiyay inaad cilaaqaadkiina dib u soo celisaa qulubahana aad isku safaysaa wayna kula hadashay waxayna ku tiri ballan kugu qaaday inaan mar dambe u noqonin oo markaa beste ma raba intaan ka badan inaan ku dhibo xataa adiga ceeb baana nagu tahay inaan wixii hore dul taagnaano adiguna waxaasoo khalada ma istaahishid wacafi adigoo weliba eegaya ubadkaad ayida u tahay inay iyadu dhashay iyo weliba inankaaga Axmed dhibaatadan qoysnimo dhibaatooyin ka badan baa hareerayna ka dhaca Suuriya iyo wadamada kaleba meel kasta dunidaba dib lagama waayo idukuna hadala yar iyo wax yar bas ku qabsateen intii wax weyn ka dhigaysa oo la hadalo waxaad ku tiraada gabadhaydii ilaahay ku saamaxay anuguna waan ku saamaxay wal musaamax kariim anu garan maayo waxa igu samaysay markaan xasuus waxba soo xasuus halkayga horun baa ku noqonaya waxbaba wixii hore bartaa ku tuu wallahi way igu adagtay aniga aad iyo aad bay igu adagtay mudane miyay kugu adagtayna wax kasta baa noqotay adiga sababtaada ku cafinaya aniga awgay la hadal dabayada ku dhee ninka wanaagsan ee wanaaga dadka ka shaqeynaya waan diga qaadayna dartii baan kugu cafinaya ilaahay ka abaalmariyo